الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. waxaan u hambalyaynaynaa muslimiinta iyo saa'imiinta iyo ardayda iyo macallimiinta ayaan halkan uga hambalyaynaynaa. waxaad ogaataan ramadaanka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu talagalay, cibaadooyinka uu noogu talagalay in aan ku dhisno xadaaradeenna, in aan ku dhisno quwaddeenna, in aan ku dhisno cilmigeenna. xadaaro kasta oo mataqaanaaye adduunka ka jirto waxay leedahay quwad. quwaddaasna xadaaro kasta quwaddeeda waa diinta. haddii ummadda aysan diinta ka dhisnayn, wax xadaaradeeda ay tarayso ma jirto. ramadaanka waa waxa ugu xoog badan nafta qofka bani aadamka ah lagu test gareeyo ama lagu imtixaamo inay ka soo bixi karto nafsadaas, in ay ka istaagto waxyaalihii ay naftu ku noolayd oo maladaadka ahaa, ama cunto ha ahaato ama cabitaan ha ahaado ama wax kale ha ahaadeeno. sidaa daraaddeed ciidda waxaana la amray oo naloo ruqseeyey oo naloo banneeyey in aan celebration aan samayno. shucuub kasta waxay leeyihiin ciid. innaga ciiddeenna ciidul adxa ayaa ciiddeenna, ciidul fitri ayaa ciiddeenna. ciidaha kaleento oo dadka kale ay celebrate gareeyaan waxaa waaye waxaan wax oo weyn oon shaqo ku leenahay ma aha. wixii diinteenna ay bannaysay inaan celebrate garayno oo aan ku raaxaysano ayaan samaynaynaa, oo ah tan ciidan. waxaan u hambalyaynaynaa muslimiinta ku najaxday in ay naftooda xakameeyaan. ciidda macnaheedana saas waaye. ciidda macnaheeda maxaa celebration aan u samaynaynaa, maxaan mataqaana isugu hambalyaynaynaa. waxaan isugu hambalyaynaynaa in aan ku najaxnay cibaadadeenni. cibaadadaas ood ogtihiin inta allah subxaanahu wa tacaala uu qur'aankiisa ku sheegay. cibaadadaas ood ogtihiin inta xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam lagu ammaanay. asiyaamu junnatun. xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam axaadiidta saxiixa ee ku soo aroortay waad garanaysaan. marka ciidda hambalyadeedu waa in aan congratulation aan isdhahno, maxaa yeelay ramadaankii ayaan ku najaxnay. waxaan ilaahay ka baryaynaa in dadka muslimiinta ah dhibaatooyinka ay haystaan as we speak in ilaahay ka qaado. waxaan ilaahay ka baryaynaa in waddankeenna uu mataqaanaay meesha uu hadda joogo iyo meel kasii wanaagsan uu ilaahay geeyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa tacliinteenna iyo jaamacadaheenna in mataqaanaa tayada hadda ay leeyihiin mid kasii fiican oo kasii wanaagsan in uu ilaahay uuna gaadhsiiyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa in uu ilaahay quwad aan cibaadada iyo camalka kan professionaalka ah iyo kan usariga ah iyo kan mataqaana camalka ah aan ilaahay uu quwaddaas una siiyo, oo aan sidaas uu mataqaana ilaahay noo ziyaadiyo si aan cibaadada iyo camalkeenna professionaalka ah si hadda aan u qabanayno si kasii wanaagsan aan ugu qabanno.
waxaan leeyahay hambalyo ardayda khaas ahaan ardayda jaamacadda Hormuud iyo staafka jaamacadda Hormuud iyo muslimiinta caamatan waxaan leenahay hambalyo cibaadadiina Allah aqbalo waa guulaysateen ramadaanka kiisa kaleento ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo waa fadl oo ilaahay in qofka isaga oo quwad leh oo soomi kara in ilaahay uu ramadaankii u keeno waa fadl min allahi waaye marka fadligaas in ilaahay uu mataqaanaay uu sanadka dambe ilaahay nagu gaarsiiyo sidaas oo kaleento inta u dhaxaysana sidii aanu cibaadaysan jiray ramadaanka dhexdiisa inaa cibaadadii meeshii aan ka sii wadno waa cusboonaysiin ramadaanka markuu yimaado waxaad aragteen in aan quraanka dhammaynayno 2 jeer 3 jeer 4 jeer in aan mataqaanaay tahajjudka aan badinayno in aan taraawiix tukanayno marka waxaa loo baahan yahay in aan sidaas iyo arrinkaas aan ramadaanka aan samaynaynay iyo aan sii wadno oo ay tahajjudkii iyo cibaadaadkii iyo quraanka akhriskiisa uu sidii uu noo sii ahaado iyada oo aanan jilcinaynin ama aan mataqaanaay aanan neglect garaynaynin camalkii professionalka ahaa ee naloo idmaday waa waxyaalo la test gareeyey oo la ogaaday qofka hadduu iska dhaadhiciyo in camalkan aan samaynayno ramadaanka uu xoogeynhayo oo shaqadaada rasmiga ka macallin ahaan ka administrator ahaan ka student ahaan shaqadaadii uu xoogeynayo inaad ku raaxaysani oo aad xoogeysani laakiin haddaad istiraahdo ramadaan weeye mataqaanaay habeenkii baan cibaadaysan maalintiina waan seexan waxaa la rabaa habeenkii inaad cibaadaysato asaaca bisaaca ood nasato oo maalintiina sidaas oo kale shaqadaadii lagu idmaday aad sideedii iyo si kasii wanaagsan aad u gudato maxaa yeelay shaqada aan qabanayno oo aan u hayno jaamacadaheenna aan u hayno oo shacbigeenna aan u hayno lafteeda waa cibaado shaqadaas professionalka waa cibaado marka cibaadadaas iyada ah inaan sii xoojino oo aan mataqaanaay ugu talagalno maxaa yeelay ramadaanka waqtigiisa camal kasta oon qabanayno cibaado kasta oon qabanayno waa double iyo kasii badan waaye rewardkeeda iyo thawaabteeda marka ciid wanaagsan waxaan idin rajaynayaa dembi dhaaf iyo ramadaankan see you ramadaankiisa kalento insha Allah. Thank you very much. Shukran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.